Toddobo caadooyin niyad jab leh oo ku saabsan bini'aadamka oo u baahan inay isbedelaan. Aan run sheegno, bini'aadamku waxay noqon karaan kuwo dhibsado mararka qaarkood, gaar ahaan naftooda. Dhammaanteen waxaan leenahay caadooyin iyo dabeecado aan ognahay inaysan ahayn noocyada ugu fiican ee nafteena, haddana waxaan helnaa raaxo inaan ku celinno si kastaba. Inkasta oo la og yahay in dabeecadahani aysan ku habboonayn, dhab ahaantii diyaar ma u nahay inaan aqbalno oo beddelno? Caadiyan jawaabtu waa maya. Taa beddelkeeda, waxaan ku malaasaynaa sababo yaryar ama waxaynu maskaxdeena siinaa hagaajin degdeg ah oo ku qanacsan. Halkan waxaa ah 7 caadooyin dhibsado oo niyad jab ka mid noqday hawl maalmeedkeena. Ka jawaabida maskaxiyan maahan xaqiiqda. Mararka qaarkood, waxaan aragnaa qoraal oo aan ka fikirno jawaab fiican halkii aan si dhab ah uga jawaabi lahayn. Inta lagu guda jiro qorshaynta jawaabta faahfaahsan ee madaxeena, waxa kaliya ee maskaxdeena ka siibtaan annaga oo aan hitaa ogaan. Tani waxay ka dhigi kartaa qofka kale inuu dareemo xanaaq, iyada oo aan qofka ilaaway inuu u jawaabo hitaa ma ogaanayo meesha uu ka khaldamay. Waxay dhacdaa sababtoo ah had iyo jeer hababka fikirka gudaha uma turjumayaan ficilada dibadda. Waa farqi isgaarsiineed oo caadi ah halkaas oo dhinac uu dareemo inaan la maqlin, halka kan kalena uusan ogayn. Haddii aad rabtaan warbixintan oo kale fadlan guji sabskaraabsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Burburinta qorshayaasha daqiiqada ugu dambaysa. Ma awoodi doono inaan imaado, waxay noqon kartaa qoraal fudud oo la diro, dhammaanteena waxaan samaynay tan marmar. Laakiin burinta qorshayaasha daqiiqadaha ugu dambeeya runtii waa dabeecad niyad jab leh sababtoo ah waxay carqaladaynaysaa jadwalada iyo filashooyinka kuwa kale. Mararka qaarkood, dadku waxay baajiyaan daha sababtoo ah waxay rabaan inay dhibsadaan ama ay kharibaan, laakiin sababtoo ah isbeddelka daqiiqadaha ugu dambeeya ee niyadda ama tamarta. Ka gonaanta qorshayaasha waxay abuuri kartaa cadaadis ama walaac bulsheed, taasoo keenta qaar ka mid ah inay dib u noqdaan, laakiin gudbinta hore waxay yaraynaysaa fursadda isfaham la'aanta. Alaarmiga hindisada si aan dhammaad lahayn ayaa u dhaxa sababtoo ah waxaan rabnaa inaan kacno wakhtigii loogu talagalay, isla markaana waxaan rabnaa dhowr daqiiqo oo dheeri ah oo nasasho ah. Dejinta alaarmiyada badan waxay u dhaqmaan sida ikhtiyaarka badbaadada hab aan ku xaqiijin karno nafteena in haddii aan mar kale miyir daboolno, ay jirto fursad kale. Badanaa waxaan bilownaa dejinta alaarmiga 1-2 saacadood ka hor wakhtiga dhabta ah ee aan u baahanahay inaan toosno, inkasta oo aan ognahay in dhowrka wicitaan ee ugu horreeya ee soo kicinta ay gebi ahaanba faa'iido lahayn. Waa isku darka dib u dhigista iyo habdhaqan raaxo doon ah oo ay adag tahay in la beddelo, xitaa marka ay noqoto mid xanaaqsan oo dhib leh maalmaha qaarkood. Qorista liisaska waxqabadka oo la iska indhotiray. Samaynta liis waxqabad oo faahfaahsan waxay siinaysaa dareenka bilowga ah ee xakamaynta iyo abaabulka. Waxay dadka ka dhigtaa inay dareemaan wax soo saar aad u sarreeya iyo inay la mid yihiin tallaabo loo qaaday guulahooda. Si kastaba ha ahaatee, dhammaystirka dhabta ah ee hawlaha waxay u baahan tahay dadaal, is-edbin iyo dhiirigelin joogto ah. Tani waa meesha ay dadka intiisa badani ka maqan yihiin oo ay ku jiraan dembiga ah in aysan ku bilaabin liiska waxqabadka si quman. Waxay dib u dhigaan oo ay diiradda saaraan samaynta liiska waxqabadka maalinta xigta iyagoo u malaynaya inay fiicnaan lahayd. Ka falcelinta xad-dhaafka ah ee qoraallada emaylada xirfadleyda ah waa waayo aragnimada aadanaha ee caadiga ah sababtoo ah waxaan rabnaa inaan nafteena u bandhigno inaan nahay kuwo aad u xirfad badan oo la safeeyey. Ka fikirka iyo in aad u kacsan tahay tiibo yar waa mid aan loo baahnayn sida ficilku horeyba loo sameeyey. Waxa ugu fiican ee la samayn karo waa in la ogeysiiyo qofka kale inuu ogaado waxa ay dhab ahaantii ula jeedaan inay joogaan. Halka qof kastaa sameeyo tiibo, taasina ay tahay dhaqan aad u caadi ah oo aadamigu u baahan yahay in la saxo oo aan laga fikirin. Soo kicinta abka si qasab ah. Marka lagu jiro dada duubista aan dhammaadka lahayn iyo macluumaadka degdega ah ayaa dilaaca. Ereyada sida duubdhaafka iyo suulka joojinta qabashada sida dareenkayaga si joogto ah loo xakameeyo apps. Barnaamijyada mobilada waxay bixiyaan abaalmarin la mid ah jeceshiyo lama filaan ah, fariimo ama waxyaabo cusub oo kicinaya sii daynta dopamine ee maskaxda, siinaya wakhtiyo raaxaysi ama raynayn ah. Tani waxay dhiirigelinaysaa hubinta soo noqnoqda wixii ku soo kordha si dareenkaas mar kale loo raadiyo. Runtii kuma faano wakhtiga shaashada ee 9 saacadood, laakiin taasi miyay naga dhigaysaa inaan joojino abka soo kicinta si miir la'aan ah? Hadhow ayaan samayn doonaa oo dib uma soo laaban.
Ha ahaato in saxamada wasakhaysan la geliyo saxanka mar dambe, ama ha ahaato in la isku dejiyo dharka aan la dhaqin sidii in si toos ah loo nadiifin doono, dib u dhigiddu waxay nagu raacdaa lama huraan. Waxay hadhow keentaa dareen dembiyeedka ku saabsan falkaas, laakiin diyaar ma u nahay inaan aqbalno.